الرحمن الرحيم قدوميها قولها وكيلة بنتلان قولها وزيرة بنتلان قولياشا بارلمانكا هير فدرال iyo heer Puntland mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada madaxda kala duwan ee dawladda halka joogta qaybaha kala duwan ee shacabka ay u horeeyaan cuqaasha iyo ismada iyo waxgaradka bulshada inteeda kaleeto ee dhalinyarada iyo haweenka iyo qaybahooda kala duwan dhamaantiinba assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh runtii waxa ay tahay sharaf weyn inaan maanta imaado Qardho waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa maamulkii ka shaqeeyay soo dhaweyntan quruxda badan ee maanta halka lagu soo bandhigay oo muujinaysa dadka reer Qardhood sida dawladooda iyo madaxdoodaba ay u karaameynayaan sida ay u marxabeynayaan oo u jecel yihiin inay la joogaan waxaan runtii anigana inii muujinayaa farxadaas iyo wanaagaas aan noo samayseen mid la mid ah waana ku mahadsantihiin waxaad ogtihiin waxaan hadda soo marnay safar dheer oo garoowa halkaan nimid insha Allah waxaan ku sii soconnaa ilaa Boosaaso safarkeenu wuxuu isugu jiraa safar shaqo oo ah mashaariic socotoon kormeerayno deegaamada aan sii marayno bulshadooda la kulmayno iyo ugu dambeyn magaalada Boosaaso iyadana aan u tagayno hawlo shaqo oo kala duwan oo aan rajaynayno dhamaantoodba inay si habsamina noogu soo dhamaadaan muddo la taagnaa caawa waan la joognaa hadal waa noo dhiman yahay waxaase runtii ay marxaanti ka tahay maanta farxadan aad hadda soo bandhigteen iyo damaashaadkan waa fariin cad fariintiina waa qaaday aadna waan uga mahadcelinayaa ilaahay idinkiis waxaan rajaynayaa dawladda Puntland oo runtii Qardho guud ahaan dhismihii Puntland iyo horumarkeeda iyo socodsiinta nidaamka dawladeed ubuc u ahayd mar walbana garab taagneed inuu nidaamka dawliga hor u socdo sidii looga bartayna ay mar walba ay garab taagan yihiin madaxdooda waan mahadcelinayaa dadaalkaas muddada dheer ay sii wadeen waxaan rajaynayaa dawladdan inay si gaar ah ugu suntan tahay iyaga waxa ay qabatay oo sharaf ah qayb bay ku leeyihiin wixii dhaliila oo ay leedahay dawladdan qayb bay ku leeyihiin waxaan rajaynaynaa guulaha la gaarana inaan wada damaashaadno dhaliilaha jirana aan si wada jiro u saxno haddaan teenni ka adkaana Puntlandna tii Soomaaliyana qaybteeda aan ka qaadano waxaan rajaynayaa fariintan waa fariin siyaasiya waa fariin Soomaali u socota waa fariin u socota dawladnimo jacaylka waa fariin u socota mar walba diiranaanta iyo sixidda iyo horu socodka aad baad u mahadsantihiin hadallo badan halka maanta igama furna inta dhimanna insha Allah kulamada kaleeta ayaan ka jeedin doonaa waxaan rabaa inaan halka uga sii sheego maadaama bulshadu u weyn tahay mashaariicda inta aan joogno aan wax ka qaban doonno waxaa ka mid ah oo xafladeedu berri dhici doonta haddii Ilaahay idmo sahminta wadada isku xirta magaalada Qardho iyo magaalada Bayla waxaa nala socdaa hay'adii wadooyinka iyo wasaaradda howlaha guud waxaan hadda soo marnay oo soo kormeernay buundooyinkii iyo jidadkii go'naa iyo shaqadii ka socotay waxa la ii doortay dawladnimadan ka shaqeynayay Qardhooda dawladnimada ay deeqda wax inta ka duwan haraadinina insha Allah taas aan ka wada shaqeyno taas aan dadteena ku jirtaa nolosheena ku jirtaa horumarkeena ku jiraa dadkeena quruxdiisa iyo baraarihiisa ay ku jiraan nabadda aan ka wada shaqeyno deganaanshaha aan ka wada shaqeyno horumarka aan ka wada shaqeyno isjacaylka iyo walaalnimada iyo wanaagga aan ka wada shaqeyno insha Allah abaarta baahsan ee dalkayga Soomaaliya ka jirta guud ahaan iyo geeska Afrikaba waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka rajaynaynaa
in uu barwaaqo iyo roobab caamiya ah oo wanaagsan oo ummaddan kala qaboojiyay uu nasiiyo xilligii guga wax kooban baa ka haray ilaahay ha naga dulqaado abaarta ilaahay intuu roobka uu noo keenayana aafooyinka abaarahay wataan ilaahay naga jeediyo cudurrada iyo gaajada iyo baadka xun ilaahay naga dhowro ilaahay waxaan ka baryaynaa dad isu naxariista oo isu kaca inaan noqonno dawladdu waxay samaysay guddi dawladda ah iyo mid bulshada ah waxaa la rabaa in la isku naxariisto in dadka jilicsan la ogaado in dadka abaarta ay waxyeelaysay si loo gurmado idinkana waxaan ii rajaynayaa inaad dembi dhaaf ilaahayna siiyo iyo horumar iyo wanaag aad baad u mahadsantihiin